لحنين أو ولا intiina badan reemiyaad aheedeen 6 nin oo walaalo ah ayaa reer ahay oo meel wada degan waxa u xaraysan xoolahaas waxay rabaan in la raaco waxay rabaan in la waraabiyo waxay rabaan in la daaweeyo waxay rabaan in shilintii laga guro waxay rabaan in la saado xoolahaasi intaas aan soo sheegay waa dhibka ay qabaan laakiin xoolahaas maxaa laga intifaacaa waxaa laga intifaacaa in la maalo in la qasho in la iibsado 6 nin oo walaalaha aheed oo cidda aheed oo xoolaha dhaxdooda ay ku xareysnaayeen haddii mid ka mid ah uu raacayo waraabinayo shilintii ka gurayo uu dhaqaalaynayo dhibkii uu ku dhacayo laakiin markay imaado in la iibsado in la maalo in maaragtay la qasho aan loo ogoleen shanti kalena ay leeyihiin mudnid ka warrama ninka asaga walaalihii kala hadduu u sabro maanta oo biri u sabro oo shalay u sabro mar kasta ma sabarkaasuu ku jirayaa ama sidaasaytow ayuu aga guurayaa bal su'aasha xaggiinay jirtaa waxa adiga ku qanciyo ayaa anii qanciyo waa idiin sheegay inta midnimadaan raadinayo waa idiin sheegay inaan 2017kii sidii ogaanto sharafta lahay intaan aniga lacagtayda geel qalay aan dhahay walaalkii wakaa la soo qaatay ee garabkaca sida aniga maanta liigu sameeyo umbaa kuwa iga dambeeyo iyo kuwa kalena lagu samaynaya haddii xaqaan garab istaagi wayno cadaalad dhaxdeenna aan ka samayn wayno waan burburaynaa 5 horaan wayne 5 kalaan wayne maxaa qasbaayo cadaalad la'aan maxaa qasbaayo xaqii oo la garab marayo taasna aniga iima qalmato maxamed kaahiya ahaan walaalayaal indhahaas ka xiray indhahaan iska xiray 10 sano ayaan ku jiray siyaasadda 10 sano reerkaas dulman ahoon socdo inaad idhaahdaan maahanto nin 5 bilood ku jiray waan soo qaatay maxaad u garab socotaa ima qabato